sanadku markuu ahaa 2013 bishii August waxaan u sheegay anigoo wasiir ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaan u tartami doono gudoomiyaha guddiga midowga Afrika sanadka 2016 haddii alla idmo wuu igu hambalyeeyay waxaanu ii ballan qaaday inuu iga caawin doono wuxuuna yiri hanka gabar Soomaaliyeed oo leh ma haynee waa ku garab taagne ee alla hayna gaarsiyo waqtigaas markii doorashadii la soo gaaray sanadkii 2016 ayaan hawl galay waxaan ogaaday waqtigii araajida la xareynayay waan ka soo gaarsiiyay oo aan codsigayga xareystay nasiib wanaag waxaan noqday qofkii kali ahayd ee ka soo hadhay Afrikada bari kadib markii dadkii kale la disqualify gareeyay ama la reebay taasoo ay 14 dawladood ee bariga Afrika isku raaceen inaan anigu mas'uul bariga Afrika waxaan nasiib u helay inaan ka gudbo dhowrkii jaranjaro ee arjiga tartamuhu marayay markay ii dhinay doorashadii iyo codayntii madaxweynaha kali ah ayaan mar kale u tagay madaxweyne xasan sheekh oo weydiistay inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu codkiisa siinayo Kenya waqtigaas wuxuu yiri ka had kursigaas waxaan isku dayay inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay Soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan looga faa'iideysan karo madaxweyne xasan wuxuu ku adkaystay inuu codkiisa Kenya siinayo ee aan waqti iskaga luminin marxaatiyadii maalinta fadhiyay waa nool yihiin oo way joogaan waan la qaatay arintii manaan ka hadlin ee waxaan goostay inaan sugo doorashada dambe ee sanadka 2025 waxay noqotay inaan 8 sanadood oo kale sugo oo aan dib u soo sharaxo waqtigan imika ah muddo hadaba laga joogo 8 bilood ayaan madaxweynaha u tagay waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursigii mar kale isu sharaxo waxaan nala fadhiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac waqtigaas madaxweyne xasan isagoo dhowla cadeynayo faraxsan ayuu wuxuu igu yiri waxaan ka ballan qaaday inaan dagaalka safka hore ka galo oo aan meel kasta oo ay la gashaba aan u galo hel ama waa ku garab taaganahay meel ay la gaadhaba waxaan kugu campaign garayn doonaa si weyn ee waliba adigu soo qoraalada loo baahan yahay halkaas markay marayso wuxuu ii qoray warqadii ku socotay ra'iisul wasaaraha oo ku amrayo in hawshaas layla wado waxa kale uu saxeexay nominationkii ama warqadii loogu sheegay African Union in Soomaaliya musharax u ahay intaas kadib ra'iisul wasaaruhu waraaq buu u qoray wasaaradda arrimaha dibadda oo uu u sheegayo in wasaaradda qaybaheeda iyo ay maxay ahayd safaaraduhu ay si weyn hawsha uga qayb qaataan ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo saaray dekreeto uu 5 wasiir ku amrayo inay la shaqeeyaan wuxuu kala dekreeto u qoray 2 envoy ama 2 wakiil oo dawladaha ku wareega waxaa qoraal loo qoray 54 dawladood iyo 4 urur goboleed iyadoo laga codsanayo inay taageeraan dhammaan waraaqahaasi waa yaalaan waana la hayaa halkaas marka la joogo waxaan bilaabay olole aan safarro hawleed oo badan ku galay qoraaladii loo dirayay dawladaha ayaa la gaarsiiyay inkastoo markaas ay jireen dad aad iyo aad maaragtay hagardaamo badan iyo hortaag badan ay maaragtay ay igu wadeen saana hawsha u soconin haddana waa dul qaatay oo hawshaydii horaan ka watay waxa baarlamaanka oo labadiisa gole u dhan yihiin ay soo qoreen qaraar soo saareen qaraar ay ku taageerayaan musharaxnimadayda oo waliba sidaan hore u sheegay ay dhaqaale ku dareen fadhigaas baarlamaanka waxaa fadhiyay 254 xildhibaan oo gacanta u taagay waqtigaas kadib waxaan sii xoojiyay ololihii wasiiradii iyo guddigii ila shaqeynayay waxay ila galeen safarro qaarkoodna socod iyo telefoonba waxay ku soo guuleysteen inay dawlado badani ay ballan qaadiyo inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan
markii wasiir fiqi wasaaradda arrimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha waxa markaa noo suuro gashay inay 57 dawladood oo ururka islaamka ay taageero buuxda Soomaaliya siiyaan waqtiga kadib dawladda Djibouti ee walaalaha nahay oo 6 bilood aan kaga horeeyay ku dhawaaqista musharaxnimada ayaa markaa ka hor timid oo go'aankii ururka islaamka ku yiri Djibouti buu way tartamaysaa lama siin karo Soomaaliya ogolaansho u gaara waxaynu markaas ka heli lahayn 30 cod ama 30 dawladood oo ururka islaamka oo kamid ah Afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayay hadii codka la qaado waxa kale cod ka haystay dawlado 10 ka badan oo gobolada kale ee Afrika ku yaala waxay si dhiiri galiyay inaan noqday haweeneyda kali ah ee 5 nin la tartamaysa runtiina gabadh ayaa aad loo xiiseynayay maadaama 60 sanadood ay hal mar oo qura ay gabadh madax ka noqotay ururkaas oo 4 sano kaliya ah bishii May bartamaheedii dhamaadkii shirkii madasha Muqdisho waxa ay yeeray madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Xamse ku xigeenkiisa iyo 4 kamid ah madaxda dawlad goboleedyada odayaashaas waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka haro tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay markii aan weydiiyay sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro soo isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan haro waxaan isku dayay inaan garnaqsado gubaabiyo ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda waxaan u sheegay in 2016 la iiga reebay kursigaas waxaan u sheegay inaanu 40 sanadood dambe ku soo noqonaynin bariga Afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay hadii wareegta laga dhigayna waa 5 gobol mid walba 8 sanadood buu leeyahay waxaan uga hadlay aad uga warramay dal sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay noo soo jeedi karto haddaan helo waxaan aad uga hadlay taariikhda fiican oo masabkaasi inoo soo dhaweyn karo waxaan madaxda weydiiyay wax lagu bedeshay magaca Soomaaliyeed si aan ugu qanco arintaas la iigama jawaabin waqti dheer iyo dood badan kadib odayadii go'aankoodii ayay ku adkaysteen ana markaa waxaan ka codsaday inaan 10 maalmood oo aan soo fakaro la isiyo anigoo isla 10 maalmood waxba iska bedeli doona sorry markay 10 maalmood dhamaadeen waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka hadse yeeshataasi ma suuro galin waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan wax ka taabto faa'iidada mansabkaasi u keeni karo dalka iyo dadkaba iyo go'aankayga kama dambaysta ah kursigaas horta waa wareegto sidaan u soo sheegay muddo 40 sano ah ku soo noqon maayo bariga Afrika sidaan u sheegay Afrika waa 5 gobol kastana 8 sano leeyahay midowga Afrika wuxuu la mid yahay ama ku dhow yahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxaa jira mashaariic waaweyn ama infrastructure dalka dib loogu dhiso oo fara badan oo Afrika ka socda oo la dekado tareeno dariiqyo biriijyo iyo kuwa kale oo badan oo ay African Union saameyn weyn ku leedahay waxa hoos yimaada ATMIS oo hadda hawlaheeda ay socdaan waxa jira shaqooyin fara badan oo sare iyo kuwa dhaxeba oo dawladuhu ay wax isku weydaarsadaan intaas oo dhan markaad ka tagto waxa dalka u soo hoyanaya sharaf iyo maamuus iyo haybadii Soomaaliyeed oo kor u kacda waxaan garan lahaay ilaa hadda sababta fursadaas loo luminayo iyo sababta aniga takoorka intaas leeg la igu sameeyay ma haweenimada mise waa sababo kale oo qarsoon tiraba 2 goor ayaa la iga hor joogsaday mansabkaas ummadda Soomaaliyeed danta weyn ugu jirto tartanada waa la tartamaa kadibna hadii dawladuhu ku heshiiyaan
كل بقفك هرمرة أيا لوجا هرا لكن لما أرق ترتمى أمدل لجو قصبه إنه ترتم كوجا هرا غير كيس واحدة عدم معها مركان أنت صورنا يجي وحيلا النقطة إن أنا نكتنا سلين كرسجاس ما دام عن هراء وجتنا سلين دولة كلا مركي لا يجو أمري هسيا شيء دولة داسنا ما يهلين قبل كأفريقيا ده أيها قاتل كرسي وقت جاس لا بد كوني لحية طبعا كي وسديت سنوات كفردي ما دام هذا بقى عن سديت سنوات يولي بس 6 سنوات وكسيه الرئيس عن سجية waxay igu muuqataa in ummadda Soomaaliyeed aanay dib u heli doonin fursadan qaaliga ah kursigaasi 40 sanadood kadib ayuu ku soo noqonayaa bariga Afrika 60 sano oo ka hor ayaa la asaasay midowga Afrika Soomaaliya marna madax kamay noqonin waa 100 sanadood hadii 40 ka dambe lagu daro 60 ka sano ee hore waxaynu bixinaynay lacagta xubinnimada midowga Afrika 40 sanadoodna waynu bixin doonaa hadii alla eeba idmo waa 100 sanadood mana ka faa'iideysan doono haddaynaan marna noqon hoggaanka sidaa awgeed ma yeeli karo inaan mas'uuliyaddaas dhabarka u rito oo aan tanaasulo maadaama tanaasulkaasi taariikh madow ku xardhan yahay wabilaahi tawfiiq